waxaa sharaf noo ah maantay annagoo ka kooban xubnaha labada heer ee dowladda federaalka ah oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiintii baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed wasiiradii labada heer maamulkii gobolka Banaadir oo dhammaan warbaahinta iyo dhaqanka iyo dadka dowlad goboleedyada kale ka socda culamaa u diinka bahda warbaahinta dhammaantood intaba aanoo magacooda ku hadlaya waxaan sharaf noo inaan soo dhaweyno madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Axmed Qoorqoor oo runtii muddo dheer aan sugaynay inuu halkan mar noogu yimaado shaqadii iyo howlihii uu ka soo waday Galmudug qayb ka midana maanta halkan ugu soo gaaray waxaan rabaa ujeedka aniga hadalkaan u qaato wuxuu ahaa soo dhaweyn waxaan halkan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha annagoo halkan u wada joogna u soo wada gudbinayna salaan soo dhaweyn mudane madaxweyne ku soo dhaweyn gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare xildhibaanada baarlamaanka labada golaha wasiirada siyaasiyiinta boqorrada iyo duubabka dhallinyarada gabdhaha qaybaha kala duwan ee bulshada bahda saxaafadda dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh dhammaan inta ka soo qayb gashay soo dhaweynteenna waa idiin mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran walaalnimada iyo sharafta badan nagu soo dhaweyseen muddada noo taagnaydeen qorraxda aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa muddo dheer kadib mudanayaal maantaan ku soo laabtay Muqdisho idinkoo og howlaha iyo shaqooyinka aan ku maqnayn muddada dheer oo ka jirtay ama aan ka wadnay Galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya sharaf bay noo tahay inaan maanta idiin nimaadno annagoo nabada isu soo laabanno safarka halkaan aan ku imidno waa safar shaqo oo ka mid ah shaqooyinkii iyo howlihii aan wadnay qayb ka mid ah waan isbaraysanaynaa talooyin badan oo loo baahan yahay ayaan ka tashan doonaa waqti baan isla qaadanaynaa shaqada aan u nimid baad qaybta ugu weyn ka tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahad celinayaa